sida ku xusan qorshaha qaranka iyo NTP balanka waxay u tahay waa qorshe dheer waana in la kordhiyo heerarka helitaanka tamarta iyo in la gaarsiiyo meelaha miyiga ah deegaanada aanan tamarta iyo korontada aanan lahayn waxaa hadda hela 61.9% qiyaastii dad ah iyo korontada gaarta ahayn Soomaaliya daafaheeda oo dhan waxa u qorshaysan dawladdu sida ku xusan qorshaha National Transformation Balanka in ilaa 80% dadka ah in ay helaan ama ay gaarto tamarta sidoo kale waxay wada shaqeyn dhow dawladdu ay la leedahay hay'adaha private-ka ah ee tamarta bixiya iyagoo kala shaqeynaya kuna dhiirigelinaya inay helaan mashaariic waaweyn oo u suurtageliya in ay ka guuraan sidii korontada ay u keeni jireen oo ay u guuraan systemkan caalamiga ah oo inay korontada ka dhaliyaan solar energy-ga inay ka dhaliyaan dabeesha si marka ummaddu ay u wada hesho koronto jaban qiimaheedana la wada awoodo dawladdu waxaa qorshaheeda ku jira in ay sameyso shirkadda Sonic oo iyadana qorshaha qaranka ku xusan shirkadda korontada qaranka marka ay dawladda ay sameyso waxaa iyadana shaqadeeda ka mid ah inay isku keento shirkadaha private-ka ah ee korontada ka wada shaqeeya oo iyadana waa triple B's-kii public private dialogue darteed isku keento waxaa soo yaraan doonta caqabada ah in aanan la gaarsiin karin korontada meel kasta taas ay fududeyn doontaa in la helo shirkado private ah dawladoodana garabsa ka helaya sidoo kale waxaa jiro sharciga korontada isagana oo la ansixiyay kaas isagana ay ku qoran tahay in gobolada dalka oo dhan loo daadajiyo helitaanka korontada iyo tamarta sidaa darteed dawladda aad ay xoog u saaraysaa waxayna bilowdayba pilot project oo ah iyadoo tijaabadii ugu horeysay lagu sameynayo 3 gobol shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay aad muhiim ugu yihiin daadajinta himilooyinka qaranka ee ku aadan dhanka tamarta waxay ka shaqeeyaan gelinta korontada qaybinta korontada iyo inay u daadajiyaan ilaa heer degmooyin iyo heer gobol ilaa tuulooyinka inay gaarsiiyaan wada shaqeyntooda iyaga iyo dawladana waxay lafdhabar u tahay in la xaqiijiyo himilooyinka qaranka ee u yaala dawladda marka waxaa ka dhaxeeya iskaashi wanaagsan waxaa ka dhaxeeya wada shaqeyn waxaa ka dhaxeeya isku xirnaansho fiican dawladda Soomaaliya waxaa u yaala qorshe istiraatiijiyadeysan oo lagu hubinayo in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed qaasatan dhanka tamarta qorshahaasna wuxuu yahay wuxuu ku qoran yahay National Transformation Balanka in la sameeyo tababar lagu tababarayo si uga shaqeyn lahayn koronto gelinta iyo koronto hubinta iyo sida lagu tababari lahaa sida tamarta kala duwan lagaga dhaliyo awoodaha korontada sida maxaa la dhahaa dabeesha solar energy-ga qoraxda sida darteed waxa u qorshaysan dawladda in markii la joogo 2029ka ay la tababaray dad xirfadlayaal ah waliba xirfadlayaal dhanka tamarta ah shaqadana waxa dawladda u haysa wasaaradda iyo hay'adda korontada qaranka oo iyaguna tababarayaan ilaa dad ku dhow 5900 oo xirfado kala duwan leh maxaa la taasna waxay dhinac ka qaadan doontaa shaqo abuurka oo u ah iyadana halbeeg weyn dawladda Soomaaliya qaasatan sektorkan tamarta ah si markii 2029 la gaaro insha Allah loo heli karo shaqaale far badan oo ka shaqeeya sektorkan una tababaran xirfadeedana u leh sidoo kale waxaa sektorkani u qorshaysan oo muhiim u yahay in uu economic injection ku qayb ka qaato kobcinta dhaqaalaha iyadoo la qiyaasayo in uu 159 milyan ku soo kordhin doono dakhliga dawladda markii la joogo 2029 hadduu Ilaahay yiraahdo mashaariicda hadda socda oo ay dawladdu hoggaanka ka tahay oo ay wadaan World Bank-iga iyo African Development Bank-iga waxaa ka mid ah Somali Electricity Sector Recovery Project-iga waa mashruuc aad u weyn oo haddana implementation-kiisa ama fulintiisa ay la saxiixdeen heshiis in ay sameeyaan hay'adaha korontada bixiya ee waddanka ka shaqeeya laakiin iyagana lagu xujeeyay marka uu mashruuca uu dhamaado lacagta korontada ay ka qaadayaan taarifka in uu 50% hoos u dhaco sidoo kale mashaariicda waaweyn ee socda waxaa ka mid ah accelerating sustainable and clean energy access transformation waxaa kaloo sidoo kale ka mid ah energy and advancing cooking technologies oo iyadana mashruuc
lagaga caawinayo dadka danyarta ah iyo barakacayaasha iyo dadka degan degmooyinka iyo gobolada tuulooyinka iyo miyiga in la gaarsiiyo in ay iska daayaan isticmaalka dhuxusha oo laakiin ay isticmaalaan gaaska. waxaa kaloo jira mashruuc kale oo la yiraahdo Somali Implemented Somali Electricity Access Project SIAP oo asigana socda. marka waxay wasaaraddu wadaa mashaariic aad u waaweyn waxna ka bedeli doona saameyn buuxdana ku yeelan doona tamarta ku yeelan doona sida ay dadka u gaarto koronto easy access ah laakiin dee dhaqaale ahaan jaban. waxaan rajaynayaa private sector kana iyagana inay mashaariicdan ka faa'iideystaan